madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta magaalada muqdisho ku qaabilay senator chief merkel oo ka tirsan baarlamaanka dalka maraykanka iyadoona dhinaca kale uu madaxweynuhu warqadiisa danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dalka Mauritania usoo magacowday Soomaaliya. kulanka madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo chief merkel oo ah senator ka tirsan aqalka wakiilada dalka maraykanka ayaa looga wada hadlay arrimaha bini'aadanimada iyo ammaanka Soomaaliya. senator chief merkel ayaa u muujiyay madaxweyne farmaajo sida uu ugu faraxsan yahay Soomaaliya oo mar kale cagaheeda isku taagta, waxa uuna ku amaanay mas'uuliyiinta dowladda federaalka sida ay uga go'an tahay horumarinta iyo taabagelinta ammaanka Soomaaliya. senator chief ayaa ammaanay hufnaanta maamulka maaliyadda ay dowladdu muujisay, taas oo uu sheegay in laga daalacan karo qanacsanaanta hay'adda lacagta adduunka IMF iyo baanka adduunka ee ku aadan habka loo maamulo dhaqaalaha soo gala khasnada dowladda. madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo senatarka ka socday maraykanka chief ayaa si isku mid ah isugu waafaqay xoojinta iyo dardargelinta la dagaalanka argagixisada al-shabaab si looga soo hooyo guul degdeg ah oo la taaban karo. chief merkel ayaa gabagabadii kulanka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay beesha caalamka uga baahan tahay taageero buuxda, gaar ahaan Maraykanka, si gacan looga siiyo la dagaalanka argagixisada. dhinaca kale madaxweynaha dalka ayaa warqadiisa aqoonsiga danjirnimo waxa uu ka gudoomay safiirka cusub ee Mauritania usoo magacowday Soomaaliya oo lagu magacaabo Wadaadi Walid Sayid. safiirka cusub ee Mauritania ayaa salaam uu ka waday madaxweynaha dalkaasi Mauritania Maxamed Walad Cabdulcasiis waxa uu soo gaarsiiyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo. madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay dhigiisa Mauritania iyo sida ay uga go'an tahay danaynta arrimaha Soomaaliya. uu madaxweyne farmaajo sheegay in ay wadaagi doonaan xiriir dhinacyo badan oo dhaqaalaha, ganacsiga iyo siyaasadaba leh. Sadeam Cabdullaahi, SBS, Muqdisho.